khudbaddii adduunka ugu wanaagsanayd uu Trump his entire life aan ka maqlo asagoo dad u khudbadanaya waxay ahayd khudbaddii uu yidhi Soomaaliya waa hal wadan lama kala jarjari karo waa hal dawlad oo federaal ah ninkii aan habi ku ahayn inuu ka tirsanaado Soomaaliya ka guuriyo wadanka ma garateen warqada soo qoray madaxweynaha hadda ka hor madaxweynayaashii kale si diblomaasi uga hadli jireen walaalihiin la soo heshiiya Soomaaliya idinka ka heshiiya wuxuu yidhi annaga hal Soomaaliya aqoonsana Soomaali kale aan aqoonsana iyo Soomaali kale jarjarkeedu aan aqoonsana oo shar inuu jiro warqad inta leeyahay soo saaray iyaga doonta tamaad lahayn iyaga u tago aqoonsay dheer waxaan idin aqoonsanahay mar uu yiri qunsuliyad miya ofisiye meelaha Mareykanka ugu furnaan kulli waa soo xiraaya uu yiri ma garata waaba unproductive buu yiri wax faa'iido idinka helay male meeshan dhaqan fiican ma soo wadaan ان marka gaala jacayl gaala leeleefay bob loo taasiinay xajka hadda baan laga saaraya the rest of their life ban hadda kadib muqdisho ka soo dhoofayeen ma Soomaaliland oo xaj imaanaysa mare boobka adduunka ay dhaheen ان اعتراف aan ku raadsanayna waxaan inta lagu arkay اعتراف gaalnimo lagu raadsanay warqad inta lagu Trump soo saaray wax aan aqoonsanahay Somaliland ma jirto my friend أنا وحنا أقونسنا هو يري سوماليا الدوينة أنا سومالي أقونسين وفدرال جفرمنت وحنا أقونسنا ومورياني كلا جوي كلا وريجي مجرتير مركب وين هذا قاتان حقوق دينه وين هذا قاتان my friend